hooyadani waa gabadh dhalinyaro ah oo yar oo hooyo yar waad aragtaan say duruufaysan tahay wuxuu yidhi wardhafoor buu ku yaalaa ha ooyin iska aamus ilaahay baa duruufaha keena oo kaa faydi kara walaale waxba ha ooyin carruurtaa yaryar ee ma ogtahay carrab cadda ah ee isumaqadada ah ee midiba mid uu sanad ka wen yahay ee coloosha isu baneeyey bay haysataa oo walwalkii stresski badnaa oo ciyaalkayga fikirka igu hayaan oo dhaqaale darrada iyo jiifumada iyo hayse ay la qaybsateen ilaahay idinkana waxaa idinku baryayaa ilaahay idinku bashaariyo jannada fardooso qofkaas muraad buu leeyahay muraadkiisa inuu ilaahay u sahlo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جديد داود يا المكسات وقتنا بتقولي بين حديثي متى جار كاية تقولين تبجود كنا هذا نسودو هذا سنة قوة لبى إبر أنا لبض كوني لبعتن كبيش وبيش طبنا ضبي لبعتن كذي وحنمرك اللي تشوفنا هو الصوماليات وطمع ومريم حسين آدم وحننكره اللي تشوفنا مجال نيروبي عاصمة ذلك كان يجاران حفظ الصومالي ويدقن تأثير ليهو بيشنا نكون شروع طبنا طبعا كذي أيانو مقال كدوبني dadka Soomaaliyeed baan u bandhignay caruurteeda waxay deganayeen meel guri kamid ah guriyaha ku yaala Nairobi gaar ahaan xaafadan Isliilayaho meel jika ah oo kooban oo urursan oo kulul meel si saad kama sheekayn karo dadka intii daawatay way daawatay bal intii aan daawan xogaan yar xasuusiyo hadda wadan muuqaalkii hore saaxiib yeel gidigii Mexico joogtaan nabadgelyada ABN xariishiisu haydin ahaadeen hooyadani waa gabadh dhalinyaro ah oo yar oo hooyo yar waad aragtaan say duruufaysan tahay wuxuu yidhi wardhafoor buu ku yaalaa ha ooyin iska aamus ilaahay baa duruufaha keena oo kaa faydi kara walaale waxba ha ooyin carruurtaa yaryar ee ma ogtahay carrab cadda ah ee isumaqadada ah ee midiba mid uu sanad ka wen yahay ee coloosha isu baneeyey bay haysataa meeshay degan tahay ee seexatana waa meesha intan leeg oo annagu aanan haddeer fadhiyi karin kulayl intay ka qabtay yaraan darteed waxaan ka codsanaynaa horta marka hore de meel meeshan ka xoogaa ka roon in la baadi doono oo laga bixiyo oo mootay la dajiyo guriga deganta kaliis waa mise 8 kun waa $8 ha meesha inta lagu $8 ay degan tahay halkaana cunto ku karsada halkaana ilmihi ku siistaa sariirta labaatan halkaana seexiya ciyaalkii waagi ana isaga joogna gurigeen baa deganada ka soo guuray aad baad u mahadsantiin muuqaalka aad daawateen mid kala bedelay dad fara badan oo Soomaaliyeed ba markay daawadeen dareenkooda uu taabtay aad bay uga jawaabeen dad badan baa la soo xiriiray telefoonkeeda meesha ku qornaa gurigii ay deganeen meel aan ahayn baan maanta ugu nimid madaxtooye yar la moodo madaxtooye yar meel la moodo ugu nimid la hagaajiyay oo quruxsan oo aad muuqaal ku daawanaysaan ummadda Soomaaliyeed baa u kacday fadhigan aan ku fadhino haddeer fadhi carbeedka la moodo soo fadhi carbeed bade fadhi carbeed Soomaa fadhi carbeed iyada iskale dad fara badan oo Soomaaliyeed baa lacag u soo diray waxaan rabnaa dadkii inaan u mahad celino guud ahaan anaga magacyadooda koobin meel kasta joogaan degal kasta oo dunida ka joogaan inaan u mahad celino lacagtii soo gaadhay inta cadadkeedu tahay inaan idinla wadaagno waxay ku qabsanaysaa inaad idinkuna kala talisaan toos la soo hadashaan annaguna aanu tala siino waa hooyo Soomaaliyeed carruur haysato iska tabaalaysan markii hore ahayd laakiin maanta xoogaa balaqa soo gaaray ma sha Allah ilaahay barakeeyo ummadda Soomaaliyeed lacagtii baan rabnaa inaan idin sheegno cadadka ay tahay hebel baa soo diray heblaha soo dirtay ma oran karo oo kama gaari karo dad aad fara badan baa la soo xiriiray lacag soo diray bal marka hore Maryam aan soo dhaweeyay Maryam soo dhaw dad badan baa ku daawanaya Soomaaliyeed bal u jawaabo waxaad markii hore iyo mugtada ku bedelan tahay dadka la hadal waan dhawahay walaalkay horta Soomaalida meel kasta joogaan oo salaamaya korbiyo waxay haysay murugo oo caruurteeda haysato aan haystay maanta way la qabsadeen ilaahay khayr ha siiyo meel kasta dunka ka joogaan amiin fikirkii badnaa iyo stresskii badnaa way la qabsadeen waxay gurigii horta waa leega soo raray waxaan soo dagay guri oo isla meeshii u dhow 3 qol iyo fadhi qol 3 qol iyo fadhi waa $450 oo bishii ay tahay alaabaan yani guri ali keenay ee laaga liisay raashin badan ali keenay wax walba ali keenay way soo boqonayeen wax walba anaga ku garab taagan oo walaasheena tahay stresska iyo fikirka badan iska dhaaf ayay dhaheen dal iyo dibad meel kasta leega soo wacay hatta wadiyo baadi joogo oo asagoo geel la jira hatta intay dibkayga arkay
buu asaga intuu geeli soo gaday buu $400 buu shirkadda ii soo dhigay dahabshiil ka soo qaatay geel $400 buu intuu geelis gaday dhibkayga markuu arkay yani uu ka danqaday markaasuu geeliisu gaday adii naf kamid uu soo gaday marka la dahabshiil buu ii soo dhigay $400 geel wax kula joogo markaa Soomaaliya waa baadiyo Soomaali jooga yiri waxay tiri dadka daawaday muuqaalkayga waxa kamid ahaa nin oday oo Soomaaliyeed oo jooga meel baadiyo ah malaade internet meexi uu yaalaa buu daawaday kadibna geel intuu iibiyay neef geela waa $400 soo diray ku yiraahdo geel la joogan muuqaalkaaga daawaday kadibna lacagta san ku soo diray dad yowgii daawaday lacagta soo diray kamid ahaa waa garta Ilaahay barkeeyo asagana geelis Allah barkeeyo muslimiinta waan ugu mahadcelinaya maanta waan ugu mahadcelinaya mar iyo mar kastaba Ilaahay barkeeyo adigu Allah ka qabto marka Ilaahay barkeeyo hawlooda iyo awlaadoodii aan ugu duceynaya mar kasta saaxiibayaal baad mahadsantiin dhamaantiin meexi aad joogtaan Ilaahay dambigiina wiilkan walaalkayga arintayda dadka weynaha u soo bandhigay asagana waxaan ugu duceynaa Ilaahay inuu asagana fridkeer u furo muraadkiisa Allah u siro dhamaanteena dhanba iyo wiilkan walaalkayga asagana duubayo waxaan Ilaahay ugu baryayaa Ilaahay ayagana farxadii adduunkii aakhiro ugu weyneed Ilaahay inuu soo geliyo آمين دمانتين ولا دمانتين واسكولنا ولا ما سنتها قدي صاحب يا دد ما سنتين umada Soomaaliyeed waa dad gacan furan oo isjecel oo qalbi saafiya leh marka laga reebo siyaasiga siyaasi baa kala geeyay moogta idagu kala ooday waxaan fiirsaday dadka moogta muslimiinta ah wax bixiya dadka kowka ah waa Soomaalida gabadha Soomaaliyeed ama hooyada Soomaaliyeed halkan fadhida meel bay ku jirtay jika oo kululo 10 daqiiqo dhadhow baan la joognay waxaan ku duubaynayo waan joogi kara weyno sankan neefsan kara weynayo madaxii baan kululaaday waan ku dhididnay maanta waxay joogtaa meel space loo wanaagsan oo aad u qurux badan oo la habeeyay afar maxaa tin waa mise qol waa 3 qol fadhi waa 4 qol 3 qol iyo fadhi adigu 4 qol weeye baa la keenay mada lacagta kala baxay mise dad ku dhana ka baxayna kirada bilkasta dad ay soo dajiyeen marka waxay dhaheen wax walba anaga ku garab taagan bay dhaheen markaas kollay gurigani waa guri aad u weyn lacagtu aad bay badan tahay lacag baa loo soo ururiyay lacagta cadadkeeda horta way nii sheegaynaa laakiin marka hore waxaan leeyahay saaxiibayaal Ilaahay idin karaameeyo waxaan leeyahay dambigiina iyo ka waalidkiin iyo ka waalidiintiin Ilaahay dhaafo amiin dambigiina iyo dambiga waalidkiin iyo ka waalidiintiin Ilaahay dhaafo amiin waalidiintu waa awowga iyo wixii ka bilaabma ka shisheeyay qof ka soo wax soo dirsaday qof ka soo raba in wax soo dirsado qof ka soo raba in hadda wax soo diro gidiga waxaan leeyahay Ilaahay idin barakeeyo Ilaahay jannatu firdawsaha inuu kulmiyo qof kasta oo wanaaga jecel rabbi ha garab galo qof kasta oo wanaaga aan jeclayn Ilaahay moogta soo hadeeyo وهاي الصوماليين أنا قد عرضي جاي موت شرفته مد الصوماليين لا ضحي وبنا أنا قو كرسونا أنا كقولنا أنا قو صوب دقني يجا وسوي شوابي أنا قو حامل وورا كعاي وبنا نري أنا يا عبد الحكيم مقال كدوبة يا كاميرا الدبادي سوي تاجن واحد لا يساحب يا عاد بدنا ما سنتين المركلة وحنرنا هذا كده أدو مديها لا والله قمر ديجو إن أنا بالعكتي عدد كاي تاي أيدي لو ده أجنو كبار سوي قاعدي متى كلا أنا وحوي أنا واحد رادي عيد إهلو أهو والعادة دي واسكو هوي waa umul lacagda intan la wali may soo gaadin kuma xisaabtan niyada kuma yahayn sayadu way ugu tiridee inay kalunto ina lacag hesho macna ma sameeyay waxa macna sameeyay ina lacag hesho oo moogtay wax ku tarto aad ku faa'iido way ku shaqayso laakiin inta lacag hesho ay ku dhaafto si yar fudud ku dhaafto macna ma sameeyso dad Soomaaliyeed lacag ku soo diray ku soo xusay ku soo sharfay kaan naxay lacag darba ku keenay arbeel wala ku keenay fara badan raashibaa loo keenay guriga la soo dajiyay ma sha Allah isan niman wadaad ah aan saaxiibanahay oo iskuul ku leh halkan waliba nin wadaad oo ilaahay sharfay halka jooga wuxuu igu yiri carruurta waxbarashadeeda oo bilaasha haday quraanka tahay haday waxbarashada kala tahayba iskuulkayga la geenaya dib baan hadii aad mataa moogta insha Allah aan idinka soo sheegaya iyo meesha la geeyay hadii rabbi suura geliyo aan wax isbedelin dadkaas lacagta ku soo direen waxa laga rabaa markii hore ma haysan Ilaahay baa kaaga soo qaaday soo qaadka Ilaahay baa iska leh iyaguna way ku dadaaleen ficil bay sameeyeen ficilka Ilaahay baa isaga u dhisay dinade Allah barakeeyo in lacagtaadu ka lumin oo aad moogtay si farsamaysan oo wanaagsan ay kugu shaqayso si kastaba ahaatay waxaad iska ilaalisaa talaan ku siinayaa dad badan oo markii hore aan ku aqoon ba hadda dabcan inay ku bartaan kuwa badan oo moogtay ka durugsanaa raba in hadir kugu soo dhawaadaan marka lacagtaada darteed bay kugu soo dhawaanayaan waxaad ka ilaalisaa qof kasta kuwa waliba rag sheegtay baa jiro oo soo hanqaltaagaya waa garanaya kuwa rag sheegtay waxa ma sunuud la ururiyay nin rag oo sharaf ku jirto oo Soomaali buyur aade kulay uma hanqaltaagay kuwa rag sheegtay baa kulay
waxaan qaltaagaya xogaagaasi adeere ka ilaasho insha Allah saaxiib yar soo dhawaada waxaan rabaa inaad ii sheego lacagtu intay tahay إذا بلاهي ذيك الله بحي قفصة وحول بحي دمشق ولا بحي دي موقت عرولان تهاي يهدي عروتك خير حماتي تهاي يهدي جورك عقدي جواي تهاي يهدي ول والكرات تهاي يهدي موقت يسقى قف كسماش ولا بحي أنا موجود يسقى قف كسمرات كيس الله وسهل إلهي هو سهلو كي كون دولار بحي كي لبكم بحي كي بقول دولار بحي كي هل دولار بحي أنت بدي إلهي وجيه إلهي دكما قديو قف كسوا واحد بحي إلهي أكو أقبله الكنارت هو مليون حوي ترى مكفر عنك كم مكفر أبغى أسمع تحكينه lacagtu waxay isugu jirtaa dad badan Soomaaliyeed bayna daawanayaan lacagta Kenya aad u aqoonay de Kenyan iyo dollarka soo noqday Mareykanka bay isugu jirtaa waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 iyo 8 iyo 9 iyo 10 halkaas horta waa milyan ko waxa uu dhigataa milyankaas wuxuu u dhigmaa 10,000 oo dollar halkaasina waa 20,000 oo dollar 20,000 oo dollar اللهم صل على محمد halka imsa diga haysan 30 ku badiga haysan ila socodee halkani waxa weeye carruurtii baa sheekeynaysa oo faraxsan halka ciyaaraysa maalintii hore dansanayd inta cunto cuneen oo aan cabeen oo farxeen oo guri degeen bay soo riyanayaan idinka ka farxiyay rabbi hadii ka farxiyo dhamaantiin qaylada aad maqlaysana waa iyagii waa 1 iyo 2 1 2 3 4 5 6 7 8 halkaasi waa 800 oo kun oo lacagta Kenya oo dhiganta maxay de 8,000 oo dollar imsa ay haysan idinka xisaabinaya dira socodee كو يلا بيا صدق يا أفري شن يلح يصدق يا سيدي سجال يطول يخوي يطول بيا تصدق حتى أفري تشن يطول لح يصدق صدق يطول سيدي يطول سجال يطول لا تن وجي أنت دعوة تسوق وقت هاي صاحب يا الجود هلا عقته واحد نقطة يا ماي تهاي وافرتن يكو وافرتن كوب يا فرتن كن يا أفر بقول تضواتن يسيدي دولار هذا نقول عليه لعقته يا شيء إجعان تيدا ku jirtay idinku aad u soo dirteen yaad kaga farxiseen ilaahay dambigiina iyo waalidkii marka la dhaafay waxaan leeyahay waa 40,000 470 iyo 8 dollar dhamaantiin waxaan leeyahay saaxiibayaal ilaahay milgaha leedin hadii lama laabo muslimiinta dadka ugu gacanta furan dadka Soomaalida aan ugu aqaan inay tahay meesha hadda degan tahay aad keenteen idinku iyo meesha maalintii hore ay deganeed waad aragtaano si u kala duwan yihiin gurigeena joogtaa rabbi dambigiina ha dhaafo amiin ilaahay moogtahay jidka siraatiir oo fudud hayno dhaafiyo gidigeen amiin qof kasta raba inuu wax la baxo uu ku baxsan karaa wali sadaqada way u baahan tahay qofkii wax la soo baxayna ilaahay ha u laban laabo kii moogtahay rabin wax la baxo waayina ilaahay wuxuu la baxo oo sadaqada ka bixiyo ha u dhiibo dhamaantiin waxaad ilaahay saaxiibayaal maxaad oran lahayd ugu dar lahayd walaalayaal waa idinku maxad elinayaa lacagay fara idinka ii soo dirteen aad idinku maxad elinayaa walaalahayga oo walwalkii stresski badnaa oo iyaalkay fikirka igu hayaan oo dhaqaale darrada iyo jiifumada iyo ay la qaybsateen ilaahay idinkana waxa idinku barayaa ilaahay idinku bashaariyo jirada fardooso qofkaas muraad buu leeyahay muraadkiisa inuu ilaahay u sahlo aad baan ugu farxayaa ilaahay idinku farxiyo adduunyo aakhiro waan idin duceynayaa aadaan u mahadsantihiin ma dhahayahay aad baad mahadsantihiin saaxiibayaal gidigiin waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan rajaynaynaa khayr tooso ama online oo weligiin aan ka dhamaan nabadgeliyo adeer ma santahay salaam salaam